عليكم السلام. How are you, Subir? Well, we are good. ما شاء الله ما شاء الله. كسو دو انستغرام كدي جسوار وان اسكو ديينو انيغ يوم تانينانو topic topic aan ka hadalno hay'adii aan soo dhaweeyno shirkadii Somali Success meel ay iskugu yimaadaan ku soo dhaweeyno kuna wandowna hay waa mahadsantiin horta inaan soo invite garaysaan maanta magacaygu waa Suhuur ma sha Allah waxaan ka mid ahay teamka heer sare la yiraahdo organizationka magaciisa waa heer sare campaignka magaciisa waa iga warhay welcome to iga warhay adiga mataan iyo taageerayaashaagu inaad ka mid noqotaan dadka u advocate gareeya mental health and iga warhayna support gareeya insha Allah waa taan rababa inaan markii anigiyo mataanaanu kala dooranaynay horta dhammaan waanu mahad celinaya intii noo soo qoray rabeenay ka soo qayb galaan waxaan isku daynay inaanu choose gareeno wax wacyigelin dhiirigelin dadkeena waxaan faacasa iyo de Somali stories oo successful farxad bay anaka noo tahay inaanu ka sheekeysano hadda mental health waayo de waa waxay dadku Soomaalidu qariso yes waa wax ay maxalada hoosta carbon costisan ku xaraynaa waan ignore garaynaa waxa u badan waliba marka laga hadlayo Somali community-ga xagan jooga iyo ku dalka joogay laakiin heer sarahaana ku waxanahay horta waxaan la aasaasnay 2014 beginning of 13 end of 13 beginning of 14 we are a group of young people sort of Somali ku hadlaynaa don't worry martidayda waa free waxaan ku hadalnaa afmay af Soomaali Ingiriisi Japanese waxa weeyaan Soomaalida dadka Soomaalidan la hadlanaa marka Soomaali isku daynan ku hadlaa as much as I can inshallah go ahead wata xaga waxa 13 ba asaasteen 2013 end of 13 beginning of 14 way as a hersere ma aha hay'ad or big foundation or ama dad yani like mashaariic sameeyo waxaas ma ahayn waxaan ahay group of young people from all over the world UK ban joognay Canada UAE Somalia wadankii Somaliland baan joogay Doha headquarters-kayga waa Doha weeye where and like the first founders ki Doha bay joogeen and myself in the UK marka ka bacdi waxaan ugu kalifeen u sameynayna waxa weeye wacyi la'aanta ka jirta dadkeena dhexdooda markay noqoto xanuunka dhimarka ama waxa loo yaqaano ay Soomaalidu yaqaanaan waalida waxaan waalidu naqaanana waxa weeye waxa marka qofka halkii ugu xumeyd uu gaaro dharkaas ka dhigo oo marxalad xun ku jiro kabacdi wadankii baan tagnay meel Hargeysa aragnay waan aragnay xaaladda dadkeena ku jiraan waxaan isniri maxaad qaban kartiin and the first thing we thought of doctoraan dhisno dadkeena waan dhakhtar galina we were so passionate about it waan dhakhtar dhisno dig and then obviously that was just like a big dream that wouldn't be like just like that or no dhaca aan ahayn kabacdi waxaan ka fakarnay maxaa kale loo baahan yahay maadaama awoodii dhakhtaran ku dhisa lahayn aan haysan as dhalinyaro maxaan u baahanahay oo jirin imaka waxaan ogaanay inaan jirin wacyigelin la'aan baa jirta wacyigelin la'aan aad u baahsan haday noqoto xanuunada in la kala fahmo haday noqoto maxay toolay dadkiiba inay horta inuu xanuunkan uun ahayn qof maryaa dhigto waali magacaas loo yaqaan inuu jiro anxiety depression so many like schizophrenic there's so many other xanuuns horta dadkiina loo macneeyo then markaan si eegnayna waxaan eegnay dadka ugu baahida badan leh dadka dariiqyada jooga they are mentally ill they physically ill because qofka dariiq buu fadhiyaa maalin iyo habeen qaadkii bay cunayaan oo dawo ma qaadanayaan cunto ma cunayaan waana homeless they don't have a home dadkooduna as soon as maalinta waxaan ustaa ugu dambaysa waxa laga yaabaa dad ay reeroodu lacag leeyihiin oo degan oo jooga magaalooyinka inuu qofkiisa xanuunsanayay baahi ama xanuun physical soo gaaray kii mentalka marka laga yimaado inuu ugu dhinto dariiqyada magaalooyinka Soomaaliya so that's the main idea of this campaign we had another campaign called Hadima Qof Dhiban oo ku focus gareynayay maxay tolay dadkeenu dhibaatada gaarsiiyaan dadkan xanuunsanaya oo ah yani carriyo shiidaya physically in qofkii biyo lagu shubo la isolate gareeyo la discriminate gareeyo it was very successful alhamdulillah it's been on for 3-4 years buu ahaa imankana iga warhay waxa weeye campaign aan doonayaan dadku ku encourage garayno caatifadooda ku tusno qofkan maanta walaalka ah ee dariiqa fadhiya maalin kasta sii dhaaftay soo dhaaftid afiya adin iyo wax kasta ugu hiili hadda waxa ugu yara ku oran kartaa waxa weeye assalamu alaykum how are you today
magacaaga waa maxay baro qofku yahay maalin kasta guriga waa fadhiya ama carruurtaada shidaya ama aad dhibaataynayso kicinaysa sida main idea of the campaign ga war tan anigi matan an isweydiinay waan rabay inaad dadkana ka qancisid anakana ka qancisid why inaku as a Somali community why aan ugu fiiqnaa farta wanaana hebel u weeleeyahay because walidi waa aqoon la'aan wixii aqoon buu malihimba we don't have the knowledge we don't have the idea of like wuu weelan yahay means this person is no longer human you know like that's the concept that we have hadduu qofkan waasho waxa weeye bajira biduu xiraadaan Soomaalidu mahmahooda waxa weeye qof hadduu waashay wuu hagaagay ma laha wuu bogsaday mooye wuu mir qab ma laha basically you would never be better you would never be like us again which is wrong because adduunka waxa ku nool dhakhaatiir looyaro people that have suffered from mental illness but noloshooda markay medication iyo caafimaad iyo daryeel helaan noloshooda sii watay halkay ahayd dadkeena ugu xanuunka badan waxa weeye aqoonyahanka the teachers ba ugu dadka hada aragna anaku since 2015 we've been doing Ramadan food distribution in Hargeisa so we talk to them we know their stories they have stories there's Mahdi there's Mohammed there's Ahmed there's Mustafa there's Zakaria there's so many people that have stories teachers belen they fluent English ku hadlayaan iyago Hargeysa joog they know this they have stories mid kastaba mid xaaskiisa ka dhimatay mid stress ku dhacay everyone's got a story but as long as qofkaas uu xanuustay he's an outcast he's isolated and I think the main problem is actually dan ka jawaabo sorry waxa way aqoon daro we don't know what like so wacyigelin baa loo baahan yahay dadka aqoonta la siiyo okay hadda inta haddayna daawanaysa inta gadaal inaga daawan doontaba waanu kugu horeeno maxaanu qaban karnaa waxa main la qaban karaa oo campaign kana uu main focuskiisu yahay waxa weeyaan horta as a collective wax baan qabsan karnaa as individual wax yar baan qaban karnaa carabta xalaadaan اليد العين بصيرة واليد قصيرة which is like I ودارتها هاي وأركي كرتها واحد لكن قعدت like وعنده حق أبغى كرتها واحد ويا so أنا أقول I'm a Samira in Doha I'm a Hiba in Doha I'm another person in Hargeisa ما هذه Hargeisa where it's like there's so many of us that can do so little so for example ED 25 people or people mentally ill people on the streets of Hargeisa we've fed every single day of Ramadan around 60 to 70 people we've been feeding them during Dhuhr because they don't have food but then there's so little we can do but then there's big cities every single city or Somali degan tahay waxa jooga hundreds and hundreds of mentally ill homeless people rag u badan laakiin dumarna leh dumarkaas aad buu dayacani labada su'aalood aan rabay labadaas ahayd mid waxa weeye horta ma Hargeysa baad operation sameeysan mise dhul Soomaaliyeed oo dhan talabaadna how about dumarkan waa rabay yani marag no so Hargeisa is because where we have our capabilities but we've been to Burra we've been to Borame we have connections with people in Mogadishu we would want to mobilize and give the people the formula because we don't get funders from anyone it's us trying to help each other it's like my $100 on my friend's $100 on my other friend's $100 waxaan ku qaban karno so maanta like the main thing and like yani hadafka ka leenahay waxa weeye maanta adigu gurigaaga joogta dukaan baad u tagi kartaa shanta dukaan ku dhow qofka kuugu dhow wuxuu qaban kartaa one person ay lahaa ka dhigay that's the number one thing so our message waxa weeye in every single Somali city because wadankan dad homeless waad ku arkaysaa laakiin dad mentally ill oo aad xanuunsanaya or you can tell they're mentally ill because wasakheynayaan wax kasta sameyn ma ku arkaysa dariiqa so anaka maxaa wadankeena so many mentally ill people on the streets inakoo dad yara oo dad weliba kariimiina oo wax bixiya ah oo qalbi wanaagsan ah it's just desensitization baa dhacay wixii baana wax xun bayna la ahaanin laakiin wax waanu qaban karnaa bacadlaha ta ka soo ururi waxa adigu afad ka qaado shaararka u soo gal dadka dharka ka soo bedel timaa ka soo xir waa dad baariyiin oo aad u wanaagsan kasoo waan ka baqanaa waxa oo ninka waalan baad ag maraysaa ninka waalan uu dhagax kugu dhufane but he's not ninka waalan if you say hello adeer maanta seeba tahay ii waran ma fiican tahay magaca like you know if you waraysatid maaha ninka waalan all of a sudden wuu qoslaya wallahi subhana hadaan ku sheegay stories from Hargeisa anigu I get emotional every time because
what happens is like when you ask them, they are the nicest people and they will remember you. 2 years I haven't been to Hargeisa and they still remember me this Ramadan. In a mother where's the girl? Like they know, they remember you, they know who you are. So why not help every single day? And the other point I want to mention is women are vulnerable. Dumarku aad bay u dhiban yihiin. Dumar badan oo xanuunsanaya dariiqyada jooga, caruuraa laga dhalaa that nobody knows where they came from because people take advantage of mentally ill women. Back home, dadkeena desensitization xun baa ku dhacay. Dumarku vulnerable way. Waxaad arkaysaa gabadh xanuunsan oo timeed qabo, dharkeeda jexjeexan oo ilmo yar sidata on the streets of Somalia. Ayaad arkaysaa. Waxaad arkaysaa mid la jajabiye oo la jabdilay baad arkaysaa, and she will tell you waxa nimanka miirka qaba baa iskaga taaglaahay. That's what she will tell you. She knows, she's aware, she's a human being. Waxa laga yaabaa inay magaalo kale ka soo lagayso because maskaxdeeda ma qabto, and she's being taken advantage of. Either baad joogta banaanka waad ogtahay dumarku waa cawro, dharkaa ka jexjexme, dhar ma haysta. So this whole campaign iga warhay waxa weeye, just look down, look around you, eeg hareerahaaga, eeg maxay u baahan yihiin, eeg qof, because 100 qof baa dhaafiya a day. Qofkaas lama weydiinayo maxay halkan u fadhida, yaa wax ku sameeyay, yaa tacaddi u geystay. So the main message of iga warhay, I don't want to ku dheereeyo, laakiin the main message of iga warhay waxa weeye, ka warhay the closest person you see that's suffering from mental illness or homeless or dhibaato haysto ka warhay. waxaan rabnaa topican aad iyo aad emotional dad badan baan arkaa xaggan very emotional, very emotional. xaggana waxaan arkaa mas'uuliyiin badan oo igu jirto soo gashay baan arkaa dhammaantiinba waa maqlasan mental healthka iyo issuega ka taagan dhul Soomaaliyeed meel kasta ahaata maanta. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad nii mahadceliyo iyo campaign-ka iga warhay oo aan markuu